bismillaahi raxmaani raxiim daawadayaal saaxiibayaal soo dhowaada ku soo dhowaada barnaamijka falanqaynta caalamka waa toddobada bisha toddobaad sanadka 2026 qodobada qaybtan aan kugula wadaagi doono waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey markabka lagu weeraray xeebaha dalka Cumaan xogaga iska cabinta oo soo bandhigay muuqaalka dagaalyahano konton habeen ku sugnaa mid ka mid a dhismayaasha dhulka hoostiisa dagaalkii dhanka warbaahinta ee Israa'iil iyo xogaga iska cabinta aad muddo inuu weli uu sii socdo fariinta hanjabaada ah ee dowladda Iran ee Mareykanka madaxweyne Erdogan iyo warbaahinta Israa'iil maxaa kala haysta qaarkood waxay ku talinayaan in sun lagu dilo kulanka maanta ka dhacaya magaalada Ankara ee caasimadda dalka Turkiga iyo qodobo kale ayaan qaybtan kugula wadaagi doonaa insha Allah soo dhawaada saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo maraacada show barnaamijka falanqaynta caalamka ma doonaysaa sidan oo kale in waalidka looga cumreeyo halkan waxaa uga cumreynayaa Abu Cabdi Nuur Ismaan oo isoo wakiilatay gabadhiisa shirkad la hubo oo aan damiin ka nahay almahdiyiin la xiriir telefoonka shaashada kaaga muuqdo mar kale isku soo noqod wanaagsan daawadayaal saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan waxaan ku hormarayaa warbaahinta garabka military ee xogaga iska cabinta ayaa soo bandhigtay muuqaal ku saabsan sheeko dhex maraysa dagaalyahano ka tirsanaa xogaga kaas oo ka soo muuqdo taliyihii goobta ee ciidamada ay ku sugnaayeen Ahmed Salim Al-Ghamari iyo koox ka mid ah dagaalyahanada sheekadu marka waxa ay ku saabsan tahay in konton habeen iyo konton maalinba dagaalyahanadan inay ku jireen mid ka mid ah dhismayaasha dhulka hoostiisa oo ay ka dagaalamayeen halkaasina aysan ka soo bixin muddada kontonka maalina xilli dagaal culus oo dhanka dhulka ah ciidamada Israa'iil ay ka sameynayeen gudaha magaalada Gaza muuqaalkan ayaa marka sidoo kale waxaa lagu xusay taliye ka tirsanaa mid ka mid ah guutooyinka xogaga iska cabinta ee galbeedka magaalada Gaza sida xogagu ay sheegeen waxaana taliyahaasi uu geeriyooday 27kii bishii December sanadkii 2024 kadib dagaal toos ah oo la galay ciidamada Israa'iil xilli ay ka dagaalamayeen gudaha magaalada Gaza muuqaalka sidoo kale waxa uu soo bandhigayaa doorka hogaamineed ee Al-Ghamari isagoo si toos ah u hagaya dagaalyahanada si loo bartilmaameedsado gaadiidka gaashaaman iyo kuwa ciidanka qaaday ee Israa'iil xilli ay furmaha dagaalka ee galbeedka magaalada Gaza ay ku sugnaayeen inta dagaalka uu socday muuqaalada qaar waxaa laga maqlayaa marka Al-Ghamari isaga oo leh dagaalyahanadiisa waad mahadsantihiin hore u socda dagaalka sii wada dagaalku uu naga go'an yahay deegaanadeena ayaan doonaynaa inaan xoreyno iyo erayo kale muuqaalka sidoo kale wuxuu muujinayaa isaga oo u tilmaamaya dagaalyahanada inay u diyaar garoobaan beegsiga mid ka mid ah gawaarida ciidamada Israa'iil gaar ahaan nooca taangiga ah oo wuxuu leeyahay hore u soco ha baqin sug ilaa uu ku soo dhawaado dabadeedna wuxuu leeyahay weerar hadda gantaalka ku dhifo marka waa dagaalkii dhanka warbaahinta ee xogaga iska cabinta iyo sidoo kale Israa'iil muddooyinkii ugu dambeeyay xogaga ayaa soo bandhigaya muuqaaladani oo kale iyagoo ujeedada ay ka leeyihiin ay tahay inay soo bandhigaan sidii u dagaalamayeen tanina waxay qayb ka sii noqonaysaa dagaalka dhanka warbaahinta falanqayaasha qaarna waxay yiraahdeen waa suuragal istaraatiijiyadda iyo qaabka ay u macaamilaan iyo xogo dheeraada in laga helo muuqaalada ay soo bandhigayaan waan arki doonaa waxyaabaha ka soo kordha insha Allah dhinaca kalena laba markab oo ganacsi ayaa waxa lagu weeraray xilli uu ku sugnaa biyaha marinbiyoodka Hormuz mid ka mid ah ayaa lagu warramayaa dab inuu ka kacay laakiin khasaare nafeed lama diiwaan gelin Mareykanka ayaa ku eedeeyay ciidanka ilaalada kacaanka ee dowladda Iran inay gantaale ay ku weerareen labadaasi markab waxaana Mareykanka uu sheegay jawaab military inuu ka bixin doono sidaani oo kale marka Iran lagu eedeeyo weerarka maraakiibta halkaasi ka gudbaysa wuxuu Mareykanka uu duqeeyaa saldhigyada iyo xarumaha ciidamada dowladda Iran ay ku leeyihiin hareeraha marinka Hormuz dowladda Iran si rasmi arrintan uma aysan qiran sidoo kalena ma aysan diidin halka warbaahinta dowladda Iran ay sheegtay in maraakiibtu ay u muuqanayaan inay iska indhitireen digniin dhanka amniga ah oo dowladda Iran ay bixisay warbaahinta carabtana inta badan waxay ka hadlayeen howlgalkan iyo ama duqeyntan halka ay ka dhacday in mid ka mid ah maraakiibta dab uu ka kacay inkastoo shaqaalaha waxyeello aanay soo gaarin lana badbaadiyay qaarkoodna waxay ka hadleen eedeynta Mareykanka iyo aamusnaanta dowladda Iran dhacdadan sidoo kale waxaa lagu tilmaamay in Iran weli awood ay u leedahay inay carqaladayso isu socodka marinka Hormuz waxaana ay ka digtay in xiisadu isu bedeli karayso dagaal cusub haddii sheekada ay sii socoto
dhinaca kalena markaad eegtana Iiraan waxay doonaysaa in dhanka Cumaan ilaa iyo marinka Hormuz guud ahaan iyaga gacanta ay ku hayaan maadaama dowladaha reer galbeedka ay isku dayayaan qaarkood inay halkaas ay u soo dhawaadaan. Warbaahinta Ruushka dhankeeda waxay sheegtay dhacdadan in lagu tilmaami karayo in Mareykanka weli si buuxda uusan u xakameyn karaynin amniga marinka Hormuz. Arrinta haddii ay sii socotana waxay saameyn mar kale ay ku yeelan doontaan dhanka dhaqaalaha. Marinkan waa mid ka mid ah marinada ugu muhiimsan dhanka gobolka, iyadoo dagaal dhanka marinada laga baqayo inuu dhaco oo marinka Malaaka iyo marino kalena diiradda la saarayo. Waa tii marinka u dhaxeeya dowladaha Singapore iyo Malaysia iyo ay horay dowladda Indonesia mar war u soo saarto ay yiraahdeen halkan canshuur ayaan ka doonaynaa maraakiibta ka gudbaysa, inkastoo markii dambe ay ka laabteen. Markaad eegto marka guud ahaan gobolka xiisadaasi ayaa jirta, iyadoo dowladda Mareykanka ay ku hanjabtay in arrintan jawaab cad ay ka bixin doonto. wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Iiraan ayaa dhankiisa hadal soo saaray, waxaana uu sheegay in hanjabaadda dowladda Mareykanka ay caqabad ku noqon doonto in heshiiskii kama dambaysta ahaa la gaaro ama ugu yaraan la bilaabo, kaasoo Tehran iyo Washington u dhaxeeya. kadib markii war uu soo saaray Talaadada maanta ayuu sheegay inta badan wadahadallada lagu doonayo heshiiska kama dambaysta inaanay bilaaban doonin haddii Mareykanka hanjabaadihiisa uu sii wado, sidoo kalena uu duqeeyo gudaha dalka Iiraan. hadalkan ayaa yimid kadib markii madaxweynaha Mareykanka uu sheegay in haddii heshiis la gaari waayo uu u diyaarsan yahay dagaal kama dambaysa, shaqadiisana uu qabsan doono. qoraalkan ayaa lagu daabacay barta Twitterka. Cabbaas Araghjina wuxuu yidhi wadahadallada heshiiska kama dambaysta ah ma bilaaban doonaan haddii hanjabaaduhu ay sii socdaan. ixtiraama heshiiskii aan hore u gaarnay. sidaas waxaa dhahaya wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Iiraan. mid ka mid ah maraakiibtaasi waxa uu ka diiwaan gashan yahay dalka Qatar, waxaana la sheegay inuu kasoo dhaqaaqay wadamada Khaliijka, inkastoo sida la sheegay uu kusii wajahnaa dhanka iyo marinka Hormuz, kadibna badda Carabta oo halkaas uu doonayay inuu kaga sii gudbo. waxay u badan tahay inuu siday shidaalka dabiiciga ah ee dowladda Qatar ee LNG-ga loo yaqaano. markabka kalena waxay u badan tahay inuu ka diiwaan gashan yahay gudaha dalka Japan. wax walba oo ka soo kordha waan kula wadaagi doonaa insha Allah. magaalada Ankara ee caasimadda dalka Turkiga maanta waxaa ka furmaya shirka wadamada gaashaanbuurta NATO oo dowladda Turkiga ay martigelinayso. amniga si weyn ayaa loo adkeeyay, sidoo kale dhaqdhaqaaq ma jiro oo agagaarka goobaha shirka uu ka dhacayo. madaxweynaha dowladda Mareykanka Trump ayaa ku sugan iyo mas'uuliyiinta wadamada gaashaanbuurta NATO. waxaa Trump uu doonayaa maanta inuu la kulmo Erdogan iyo sidoo kale madaxweynaha dowladda Ukraine Volodymyr Zelensky. dowladda Mareykanka ayaa doonaysa inay wax ka bedel weyn ay ku sameyso qaabka dowladda Turkiga ay ku heli karayso diyaaradaha dagaalka F-35 iyo matoorada diyaaradaha kan ee Turkiga ay u baahan yihiin, kuwaas oo Mareykanka la doonayo in uu ogolaado Turkiga. arrintaasi waxay walaac weyn ku abuurtay Israa'iil. ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa madaxweyne Trump ka dalbaday in uusan u ogolaanin Turkiga diyaaradaha F-35 ee raadaarka ka dhuuman karaya iyo sidoo kale matoorada Turkiga oo u baahan yahay inta wadamada gaashaanbuurta NATO ay ku kulmayaan magaalada Ankara. kulanka maalinta biri ayaa la soo gabagabeyn doonaa. diyaaradaha dagaalka F-35 Turkiga waxaa loo diiday wixii ka dambeeyay markii Ruushka ay ka soo iibsadeen nidaam difaaceedka S-400 oo muhiim u ahaa dowladda Turkiga. wixii markaasi ka dambeeyana xitaa cunaqabatayn ayaa la saaray dowladda Turkiga. Netanyahu wuxuu ka baqayaa haddii Ankara ay gacanta ku dhigto diyaaradaha dagaalka F-35 isu dheelitirka dhanka awoodda gobolka inay daaqadda ay ka bixi doonto, Turkigana uu awood dheeraad ah yeelan doono. waana sababta uu arrintan kaga soo horjeedo, wuxuuna qatar dhanka amniga u arkaa xukuumadda Ankara iyo xitaa isbahaysiga Erdogan iyo Trump u dhaxeeya. wuxuu Turkiga ku eedeeyay ra'iisul wasaare Netanyahu in uu maamulo kaligii taliye, sidoo kalena doonaya inuu dib u soo nooleeyo nidaamkii ikhwaanul muslimiin, isla markaana uu dhisayo isbahaysi sunni ah. waxa uu si dheer uu ku eedeeyay inuu Erdogan ka shaqeynayo sidii dowladii Cusmaaniyiinta loo soo celin lahaa. eedayntiisa intaasi kuma eke waxa uu waraysi uu siiyay warbaahinta Fox News Netanyahu, isagoo arrimo badan tusaalooyin u soo qaadanaya kuna weeraraya madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan. weerarka kaliya kuma eka dhanka iyo Netanyahu. warbaahintii Israa'iil ayaa maalin kasta macluumaad qoraya. shakhsiyaadka baraha bulshada ku jira ee taageera Israa'iilna maalmihii ugu dambeeyay si weyn ayay u kordhiyeen weerarka dhanka afka ah ee lagu hayo madaxweyne Erdogan. mid ka mid ah hadallada saameynta yeeshay ee baraha bulshada qabsaday waxaa Twitterka ku soo qortay gabadha Ariana Ronstein lagu magacaabo. muuqaal ay baahisa ayana ugu baaqday Israa'iil inay tallaabo adag ay ka qaado madaxweynaha Turkiga, iyadoo xitaa sheegtay in la dilo sun ama siyaabo kalena la adeegsado.
erdogan waxay ku tilmaamtay hitlerka cusub ee gobolka iyadoo ku dooday in haddii yuhuudda waa hore ay sii garan lahaayeen waxa hitler uu samayn doono inay ka hortagi lahaayeen mar hore. sidaasi daraaddeed waxay taagan tahay hadda waxaa muhiim ah in erdogan laga hortago sidaasi oo kale si uusan u samaynin wixii hitler uu sameeyey. ronstein waxay ku dooday in erdogan iyo madaxda kale ee dowladda turkiga ay si joogta u dhaleeceeyaan israa'iil islamarkaana ay u aragto hadalladooda kuwa khatar ku ah jiritaanka israa'iil. waxaa sidoo kale ay sheegtay haddii turkiga uu helo diyaaradaha dagaalka F-35 awoodda militari ee Ankara si weyn inay u kordhi doonto, taasoo ay ku tilmaamtay khatar toos ah oo ku wajahan israa'iil. ra-iisul wasaaraha israa'iil ayaa dhankiisa waraysi uu bixiyey waxa uu sheegay in turkiga uu yahay dal weyn oo muhiim ah, balse wuxuu ku eedeeyey erdogan inuu si weyn uga soo horjeedo israa'iil iyo yuhuudda. sidoo kale wuxuu sheegay erdogan inuu leeyahay himilooyin dib loogu soo dhisayo nidaamyo kala duwan, islamarkaana uu doonayo turkiga inuu ka dhigo awoodda ugu weyn dhanka gobolka. falanqeeyaasha taageersan turkiga ayaa dhankooda dhacdooyinkan u arka inay muujinayaan walaaca sii kordhaya ee gudaha israa'iil ka jira, gaar ahaan haddii turkiga uu dib ugu soo laabto barnaamijka diyaaradaha F-35. sidoo kale waxay sheegeen in israa'iil ay ka cabsi qabtay iskaashiga sii xoogaysanaya ee dhex maraya turkiga iyo dalalka sacuudiga, bakistan, qatar iyo sidoo kale masar, haddii iskaashigaasi mustaqbalka uu isu bedelo mid amni iyo mid militari. go'aanada madaxweynaha dowladda Mareykanka uu qalinka uu ku duugo inta uu ku sugan yahay gudaha dalka turkiga ayaa kuwa si weyn loo dhowrayo lana fiirinayo, kuwaasoo wax ka bedeli karaya guud ahaan xaaladda gobolka bariga dhexe. shakhsiyad ahaan markaad eegto erdogan iyo trump aad ayay isugu wanaagsan yihiin. madaxweyne erdoganna dhankiisa wuxuu wajahayaa culays aad u weyn iyo dhaliilo uu kala kulmayo qaar ka mid ah xubnaha mucaaradka, iyadoo si weyn baraha bulshadana looga hadalhayo kulanka ka dhacaya magaalada Ankara ee caasimadda dalka turkiga iyo saameynta dadweynaha uu ku yeeshay dhanka ganacsiga iyo meelo kale marka laga eegaba. wax walba oo ka soo kordha arrimahan barnaamijyadeena kale ayaan kugula wadaagaya insha Allah. like sar muuqaalka, la wadaag saaxiibadaada, waad mahadsan tahay. warbaahinta Israa'iil waxay sheegtay in hub sharci darro ah laga soo geliyay Israa'iil dhanka iyo dalka Masar, isla markaana hababka tahriibintu ay noqdeen kuwo casri ah iyadoo la adeegsanayo diyaarado drones oo u shaqeeya sida qaab kooxeed oo kale ama raxan diyaarada ah. sida warbaahinta The Jewish Voice lagu magacaabo ama codka Yahuudda Israa'iil ay daabacday, inkastoo indhaha warbaahinta iyo shacabka ah ay u jeesteen arrimo kale, haddana tahriibinta hubka ee xadka dalka Masar ma joogsan ayay dhahday, waxaana sii kordhaya arrintan. warbixintu waxay sheegtay in mas'uuliyiinta amniga iyo sidoo kale dadka degan agagaarka xadka ay xaqiijiyeen in hadda la adeegsanayo dhowr diyaaradood oo daroonisa, kuwaas oo wada duula isla markaana hal qof uu maamulo si loo kordhiyo tirada hubka la tahriibinayo. hubkan waxay sheegeen in shakhsiyaad ku sugan dhulka Falastiiniyiinta iyo kooxo abaabulan oo gudaha Israa'iil jooga in gacanta uu u galayo, iyada oo la doonayo in falal amni darro looga geysto gudaha Israa'iil. tusaale ahaan dadka ku nool deegaanka lagu magacaabo Nizana waxay sheegeen in inkastoo hay-adaha amniga gudaha Israa'iil, gaar ahaan hay-adda sirdoonka, ay sheegtay inay tahriibinta la dagaalamayso, haddana howlgallada tahriibinta weli si joogta inay u socdaan habeen iyo maalin. hub badan ayaa laga hortagay, kuwo kale ayaa la qabtay. eedeymaha ugu badanna dhanka xadka Masar iyo Jordan ayaa loo jeedinayaa. inkastoo mararka qaar hubkaasi lasoo bandhigay, haddana weli lama sheegin kooxo rasmi ah oo hubka gacanta u galay kuwaasoo gudaha Israa'iil jooga. mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa sheegay in diyaaradaha droniska markasta ay ka gudbaan deegaanada dhinaca xadka iyo xitaa meelaha u dhow deegaanada Israa'iil, isagoo ku dooday inaanay jirin wax caqabad ah oo hor istaagaya hubkaas inuu xadka uu ka soo gudbo. taa beddelkeedana dadka Israa'iiliyiinta ee deegaameynta ay ku samaysay waxaa loo ogol yahay inay hub ay helaan, kuwaasoo inta badan ay ku weeraraan dadka shacabka ee Falastiiniyiinta. warbixinta sidoo kale waxay sheegaysaa in xadka koonfureed uu yahay mid si fudud loo gaari karayo, isla markaana dadka biduunka ah si sahlan ay u soo dhowaanayaan xayndaabka dhanka xadka. waxaa kaloo lagu eedeeyay ciidamada Israa'iil inay waqti dheer ay ku qaadato imaanshiyaha goobaha dhacdooyinka ay ka dhacaan, isla marka ay yimaadaanna aysan badanaa ku guulaysan soo qabashada dadka wax tahriibinaya. dhinaca kalena madaxweynaha dowladda Faransiiska Emmanuel Macron ayaa booqasho taariikhi ah wuxuu ku tagayaa magaalada Dimashq ee caasimadda dalka Suuriya. Israa'iil dhinacyo badan ayay ka eegtay booqashadan, maadaama Faransiiska iyo Israa'iil arrinta Lubnaan ay aad ugu kala aragtiyo duwan yihiin. waxaa socdaalkan uu noqonayaa kii ugu horreeyay oo mas-uul reer Yuruba uu ku taga magaalada Dimashq tan iyo isbeddelkii ugu dambeeyey, markaas oo mas-uuliyiintii dowladda Syria gebi ahaanba xilka laga tuuray. Emmanuel Macron booqashadiisa waxay imaanaysaa kadib kulan hore u dhex maray Faransiiska iyo sidoo kale Syria. madaxweynihii ugu dambeeyay ee Faransiiska ee booqasho ku taga dalka Syria wuxuu ahaa Nicolas Sarkozy ama Nicolas Sarkozy,
oo la kulmay madaxweyne Bashar al-Assad sanadkii 2009. arrimahan oo idil waxyaabaha ka soo kordha waan kula wadaagi doonaa laagsar muuqaalka la wadaag saaxiibadaada waad mahadsan tahay. markii ugu horeysay Israa'iil ayaa waxay si cad u sheegtay sababtay rasmiga ay ka dambeysay inay beegsadeen hogaamiye ugu sarreeyay dowladda Iran Ayatollah Ali Khamenei. wasiirka gaashaandhigga Israa'iil Israel Katz ayaa isagoo hadallo kulul jeedinaya waxa uu ka jawaabay erayadii iyo hadalladii kala duwanaa ee ka soo baxay mas'uuliyiinta dowladda Iran kuwaas oo sheegay in ay ka aargudan doonaan cid kasta oo ka dambeysay weerarkii lagu dilay Ayatollah Khamenei iyo xubno kaleba. waatii warbixin hay'adda sirdoonka ee dowladda Iran maalintii shalay soo saartay. wuxuu sheegay sababta Israa'iil ay u beegsatay Khamenei inay ahayd in uu hogaaminayo qorshe la doonayo gebi ahaan Israa'iil in lagu burburiyo. waxaana uu yiri hogaamiye kasta oo xitaa mustaqbalka isku daya inuu hirgeliyo qorshe ka la mid ah wuxuu la kulmi doonaa tallaabo adag iyo inaan gebi ahaan baabi'ino. baaqyada qaar ka mid ah mas'uuliyiinta dowladda Iran ka soo horjeeray ayuu sheegay inuu aad u cambaareynayo oo ku saabsan inay aargudan doonaan. dhinaca kalena malaayiin qof ayaa ka qayb galaya munaasabadda aaska oo magaalada Tehran ka dhacaysa iyo magaalada Qom iyo magaalooyin kale oo dalka Ciraaq ka tirsan. waxaa jira calaamado muujinaya marka suuragalnimada dagaalka in dib loogu laaban karayo. warbaahinta qaar waxay si weyn u falanqeynaysaa shakiga laga qabo in ciyaaraha dunida kadib suuragal ay tahay in madaxweyne Trump uu doonayo weerar inuu qaado, inkastoo falanqeeyaal kale ay qabaan taasi inaanay suuragal ahayn marka la eego culaysaadka xooggan ee madaxweyne Trump haysta iyo doorashada la filayo bisha November inay ka dhacdo gudaha dalka Mareykanka. sidoo kale October doorasho ayaa waxa ay ka dhici doontaa gudaha Israa'iil. Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa doonaya si kasta oo ku qancin karaya madaxweyne Trump in ay u kulmaan waliba wadamada gaashaanbuurta NATO shirka biri kaga furmaya magaalada Ankara kadib ayuu doonayaa Netanyahu inuu la kulmo madaxweyne Donald Trump. waxyaabaha ugu badan ee dadka shakiga geliyana waxaa qayb ka ah in xabad joojinta ay sii jiri karaysa iyo in kale si lamid ah xabad joojinta magaalada Gaza oo maanta ugu dambeysaba Gaza la duqeynayay iyada oo Iran si kooban ay ugu adkaysatay in dunida wax ka yaabiya ay arki doonto haddii Mareykanka mar kale dagaalka uu dib ugu laabto. warar iyo falanqeyno kala duwan ayaa soo baxay madaxweyne Trump dhowr jeer inuu ka fakiray dib ugu laabashada dagaalka. warbaahinta Mareykankana si weyn ayay u qoraysay, laakiin madaxweyne Trump ayaa markii dambe wuxuu ogolaaday in fursad la siiyo dhanka nabadda iyo wada hadalka. koobka dunida marka uu idlaado saadaasha ay bixinayaan falanqeeyaasha dhanka militariga gaar ahaan kuwa warbaahinta reer galbeedka ayaa u badan suuragalnimada Trump inuu dagaalka dib ugu laaban karayo. wargeyska Wall Street Journal iyo wargeysyada kale ee Mareykanka ka soo baxana macluumaadyo kale ayay qorayeen. waxaa jira tallaabooyin kale oo Mareykanka uu qaadayo oo ay ka mid tahay in uu doonayo inuu saldhigyada Mareykanka uu ku leeyahay dalalka Khaliijka laga guuro loona guuro dhanka iyo saxaraha Naqab ama Negev loo yaqaano. warbixintu waxay sheegaysaa in wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda Mareykanka iyo taliska dhexe ee Mareykanka ee CENTCOM ay bilaabeen dib u eegis ku saabsan qaabka ay ciidamada Mareykanka ay ugu sugan yihiin wadamada bariga dhexe. mid ka mid ah fikradaha iyo falanqeynta hadda miiska saaran ayaa ah in la yareeyo joogitaanka ciidanka Mareykanka ee dalka Sacuudiga iyo qaar ka mid ah dalalka Khaliijka. si gaar ahaan Sacuudiga ay u badan tahay inuu Mareykanka doonayo tiro ciidankiisa ka mid ah in la dhimo. sababta ugu weyn arrintan loo tixgelinayo waxaa lagu sheegay inay tahay in dagaalka Iran uu muujiyay in saldhigyada Mareykanka ee wadamada Khaliijka si fudud loo gaari karayo, sidoo kalena wadamadii Khaliijka ay diideen in Iran dalalkooda laga weeraro. wasaaradda gaashaandhigga waxaa kaloo ay doonaysaa in ciidamada la geeyo goobo ay u aragto si wanaagsan inay u difaaci karayaan ciidankooda, sidoo kalena ay ka hortagi karayaan mustaqbalka khatar kasta oo ciidamadu ay wajahaan. warbixintu waxaa kaloo ay sheegaysaa in qorshayaasha la falanqeynaya ay ka mid yihiin in la ballaariyo xarumaha Mareykanka iyo saldhigyada uu ku lahaa saxaraha Naqab ama Negev, ama ugu yaraan halkaasi in laga dhiso saldhig cusub oo weyn kaas oo qaabili karaya ciidamada badda, cirka, sirdoonka iyo xarumaha taliska. sidoo kale waxaa lagu sheegay warbixinta in dagaalka Iran uu sare u qaaday heerka iskaashiga militari ee u dhexeeya Mareykanka iyo Israel, taasoo sababtay in saraakiisha wasaaradda gaashaandhigga Israa'iil ay u arkaan lamaanaha ugu diyaarsan gobolka marka la laabo bardhiga dalalka kale, waana midda keentay in Israa'iil si weyn loo difaaco. inkastoo warbaahintooda reer galbeedka ay sidaa ay wax u qorayso, haddana dhinaca kale markaad eegto waxaa jira khilaafyo kale oo hoose oo u dhexeeya Mareykanka iyo Israa'iil. sababta keenaysa Mareykanka inuu Khaliijka uu ka guurana waxay tahay khilaafkii ugu weynaa ee Sacuudiga iyo Mareykanka soo kala dhex galay intii lagu guda jiray dagaalkii ugu dambeeyay ee dowladda Iran. inkastoo taasina ay faa'iido u noqon doonto dowlado badan oo isgaadgaad ku haya Mareykanka mar un inuu faarujiyo bariga dhexe, waana dowladaha kale ah Ruushka iyo Shiinaha. aragtidaada nala wadaag, like sar muuqaalka la wadaag saaxiibadaada, waad mahadsan tahay.